السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعل صاحب بدأ قيمها قدرلت إيقايها اللي جمدلو رمضان الكريم رمضان مبارك أيال هود إذا كلا لهاي مال البؤد جوكتال يمرحلة البؤد اللي قد أول سال. maanta waa maalintii saddexaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa la muuqaal keela haduu Allah uu dal raali ka noqdo aan ku eegi doonaa fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan quraankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xariirkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya soonko xanaaneeya diinto xoogeeya soonko waxaan eegi doonaa ajarka iyo sidoo kale dambi dhaafka iyo aragtida markaa culimada islaamku waxyaabihii ay ka yiraahdeen fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan xigmadaha markaa ku soo aroora fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan iyo sidoo kale culimada islaamku waxyaabihii ay ka yiraahdeen ayaan eegi doonaa waxaan kaloo daawadayaal haduu Allah uu dal raali ka noqdo aan eegi doonaa farxadda Soomaaliha labada farxad markaa ee la sheegay in markaa qofka saa'imka ah ay u suglaatay inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan sidoo kale qodobada aan muuqaalkan ku dul istaagi doono waxaa kamid ah soonka iyo sidoo kale nadiifinta qalbiga soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeela qodobadaasi ayuu ku saabsan yahay waxaana uu kamid yahay muuqaalo taxalaha oo lagu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan inta markaa lagu guda jiro si markaa daawadayaasheena ay uga faa'iideystaan haduu Allah uu dal raali ka noqdo maalin kasta oo kamid ah bisha barakeysan ee Ramadaan waxay daawadayaasheenu daawan doonaan oo kanaalada YouTube iyo Facebook ee ka daawan doonaan muuqaalo markaa silsilada ah oo ku saabsan bishan barakeysan ee Ramadaan iyo ahmiyada markaa ay loo leedahay iyo sida ugu haboon ee aan uga faa'iideysan karno haduu Allah uu dal raali ka noqdo socdaal training company waxaad ka heli kartaa qalabka elektarooniga noocyadiisa kala duwan sida qasaaladaha fariijada noocyadooda kala duwan dhalooyinka TV-yada guryaha mukaafiyada kuukarada noocyadooda kala duwan iyo sidoo kale haamaha gaaska yar iyo weyn iyo dhammaanba noocyada qalabka elektarooniga ee loo isticmaalo guryaha dhammaan agabyadan kala duwan waxaad ka heli kartaa xarumahooda kala duwan sida xarunta weyn ee ku taala moolka Macallin Biimaalow oo ku yaalo kasoo horjeedka masaajidka Macallin Biimaalow iyo xarumahooda kala duwan ee suuqa Bakaaraha wixii faahfaahin taadeeri ah kala xiriir telefoon lambarada shaashadeeda kaga muuqda xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xariirkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya soonko xanaaneeya diinto xoogeeya soonko mar kale kulan wacan saaxiibayaal muuqaalkeela waxa uu daaran yahay fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan maantana waa maalintii saddexaad ee Ramadaanka haddii ay loo eeglo daawadayaal ajarka iyo dambi dhaafka markaa bisha barakeysan ee Ramadaan iyo sidoo kale aragtida culimada islaamku soonku waa cibaado kamida tiirarka islaamka balse waxa uu leeyahay fadli iyo sidoo kale karaamo gaar ah oo uusan lahayn cibaado kale culimada islaamku waxay isku raaceen in soonku uu yahay cibaado u dhaxaysa adoonka iyo rabbigiisa taasi oo keenta ajar alxad lahayn iyo sidoo kale dambi dhaaf balaaran soonka waa cibaado alla si gaar ah uu leeyahay sida markaa uu loo sheegay nabigeena Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee taasi oo uu ku sheegay xadiisul qudsi nabigeena Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu yiri alla subxaanahu wa ta'ala ayaa yiri soonku aniga ayaa iska leh aniga ayaana dadka abaal marinaya sida markaa Bukhari iyo Muslim ay wariyeen imaam ibn Rajab al-Hanbali Allah ka raali noqday waxa uu yiri soonku waa uu ka duwan yahay cibaadooyinka kale maxaa yeelay ma jiro cid kale oo arki karta marka laga reebo Allah subxaanahu wa ta'ala haddii ay loo eeglo xigmadaha markaa ku soo arooray fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan soonku waxa uu dhisaa ikhlaas dhab ah waxaana uu xoojiyaa xiriirka adoonka iyo Allah subxaanahu wa ta'ala ka dhaxeeya ajarka soonku waa mid markaa aan la soo koobi karin Allah subxaanahu wa ta'ala waxa uu yiri kuwa samra waxaa la siiyaa ajarkooda oo aan la xadidin
sida markaa alle subxaana wa tacaala uu ku yidhi suuratu azumar aayadda markaa 10aad culammadu waxa ay sheegeen soonku waa nuuca ugu sareeya ee sabarka imaam al-qurtubi allaha ka raali noqday waxa uu yidhi soonku waxaa loo tiriyey sabar sidaas daraaddeed ajirkiisu waa mid markaa aan la soo koobi karin soonku waxa uu sababaa dembi dhaaf aad u fara badan sida nebigeena maxamed naxariisii nabadgeli korkiisa ahaatee uu inoo sheegay waxaana uu yidhi qofkii markaa ramadaanka u soomaa iimaan iyo ajirdoon dembiyadiisii hore oo dhan waa la dhaafaa xadiiskaasi waxaa wariyey bukhaari iyo muslim al-imaam annawowi allaha ka raali noqday waxa uu yidhi xadiiskani wuxuu caddeelayaa in ramadaanku uu yahay fursadda ugu weyn ee dembi dhaafka soonku ma aha gaajo oo keliya ee waa toobad iyo sidoo kale dib u bilow soonku waa gaashaan kaa difaaca laarta nebigeena maxamed naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee waxa uu yidhi soonku waa gaashaan ama difaac waxaana xadiiskaasi wariyey bukhaari iyo sidoo kale muslim imaam ibnuqayim allaha ka raali noqday waxa uu yidhi soonku waxa uu ka ilaaliyaa addoonku dembiyada adduunka oo idil iyo sidoo kale cadaabta aakhirada haddii aynu eegno daawadayaal farxadda soomanaha nebigeena maxamed naxariisii nabadgeli korkiisa ahaatee waxa uu yidhi soomanuhu waxa uu leeyahay 2 farxadood waa marka uu afuro iyo sidoo kale marka uu rabbigiisa la kulmayo xadiiskaasina waxaa wariyey bukhaari iyo muslim al-imaam al-ghazaali allaha ka raali noqdee waxa uu yidhi farxadda dhabta ah ee soonku waa mid markaa ruuxeed ka hor inta aysan jirin tan jireed haddii markale aynu eegno daawadayaal urta markaa ka imaanaysa afka soomanaha inta lagu guda jiro maalinta ramadaanka ee qofku uu sooman yahay nebigeena maxamed naxariisii nabadgeli korkiisa ahaatee waxa uu yidhi urta markaa ka soo baxaysa afka soomanuhu waxay allagtiisa uga qayr badan tahay udgoonka miskiga oo kale xadiiskaasina waxaa wariyey bukhaari iyo muslim ibnu rajab allaha ka raali noqdee waxa uu yidhi tani waxa ay muujinaysaa karaamada qofka markaa alla dartii u adkaysta albaabka rayaan ee jannada nebigeena maxamed naxariisii nabadgeli korkiisa ahaatee waxa uu yidhi jannada waxaa ku yaalla albaab la yidhaahdo rayaan soomanaha ayaana markaa laga geli doonaa xadiiskaasi waxaa wariyey bukhaari iyo muslim al-imaam ibnu katiir allaha ka raali noqdee waxa uu yidhi tani waa sharaf gaar ah oo la siiyey dadka markaa soonka jecel soonku waxa uu nadiifiyaa qalbiga alxasan albasri allaha ka raali noqdee waxa uu yidhi soonku waa dariiq markaa qalbiga lagu nadiifiyo imaam ibnu taymiya allaha ka raali noqdee isagana waxa uu yidhi soonku waxa uu jebiyaa damaca nafta waxaana uu xoojiyaa cibaadada alle subxaana wa tacaala soonku waxa uu keenaa toosi nololeed al-imaam axmed ibnu xambal allah ka raali noqdee waxa uu yidhi haddii ramadaanku ku dhaafo adigoo aan ka faa'iidaysan waa khasaaro weyn soonku waa fursad markaa isbeddel nololeed ee ma aha caado sanadla ah oo keliya intaas ayaan ku soo koobaynaa daawadayaal brogaraamkeenii maanta oo ka mid ahaa silsilada muuqaalo ah oo ku bixi doona qaab maqal cod ah taasi oo aan ugu talagalnay in markaa daawadayaasheennu ay wax badan uga faa'iidaystaan oo ay uga bartaan ahamiyadda bisha barakeysan ee ramadaan iyo faa'iidooyinka markaa uu inoo leeyahay maalin kasta oo ka mida bishan barakeysan ee ramadaan waxaad daawan doontaan muuqaal gaara oo ku samadeysan maalintaasi xambaarsanna darsi muhiim ah oo aad wax badan ka faa'iidi doontaan brogaraamkeennu waxa uu diiradda u saari doonaa ramadaanka iyo sida ugu wanaagsan ee aan uga faa'iidaysan karno fadlan sheer iyo laag basaar si markaa muuqaal kan uu u gaaro saaxiibo fara badan oo wanaagsan sidaadoo kale isla markaana ay uga faa'iidaystaan macluumaadka aan halkan ku soo baahino haddii aad lala joogtay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkeenna waa ku mahadsan tahay daawade daawashada muuqaalkan mahad salid qur-aankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay
xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya soonko xanaaneeya diinto xoogeeya soonko bisha soon xurmeeyo nafta